madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Silaaya waxa uu kulan magaalada Addis Ababa kula yeeshay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Haile Mariam Desalegn. Kulankaas waxa uu ka dhacay guriga ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya. Madaxweynaha Soomaaliland kulankaasi waxa ku weeralayay wasiirkiisa arrimaha dibadda Maxamed Biixi Yunis, wasiirka waxbarashada Marwe Samsam Cabdi Aadan, safiirka magaalada Addis Ababa fadhiya Soomaaliland Aadan Nuux Duule iyo safiirka Ayaala Salaad Diiriye iyo xogaha gaarka madaxweynaha Cali Axmed Cali. Dhinaca ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya kulankaasi waxa ku weeralayay wasiirkiisa wasaaradda waxbarashada iyo saraakiil kale. Kulankaasi wuxuu ahaa mid albaabadu u xidhnaayeen, laakiin labada dhinac waxay ka wada hadleen xiriirka labada dhinac sida dhaqaalaha, siyaasadda, ammaanka iyo xuduudda. Kulankaasi waxa uu socday saacado tiro badan iyadoo labada dhinac ay ku falanqeeyeen xiriirka taariikhiga u dhaxeeya Itoobiya iyo Soomaaliland. madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaaya oo barxadda guriga ra'iisul wasaaraha kula hadlayay TV-ga qaranka Soomaaliland waxa uu sheegay in qarniyo ka hor Soomaaliland iyo Itoobiya ay lahaayeen xiriir fog oo dhinaca siyaasadda iyo dhaqaalaha, isagoo sheegay kulankii uu la yeeshay ra'iisul wasaare Haile Mariam Desalegn ay ka wada hadleen xuduudda, dhaqaalaha, siyaasadda, ammaanka iyo labada shacab xiriirka ay leeyihiin. madaxweyne Axmed Silaaya oo ka hadlay waxa uu yiri waxaan wada hadal baan yeelanay la xiriira wada shaqaynta labada dal dhinaca security iyo dhinaca dhaqaalaha iyo dhinaca trade dhinaca walba waa dalan saaxiibnahay Itoobiya waa dalan jaarnahay waa dalhadii goorar oo inaga dhaxeeyo xiriir dhinacyo fara badan leh marka tabcan marka halkaan nimaadna ama marayna dhinaca sawir nimaadna waa iska waajib inaan nimaadno madaxda halka saragno waan isweydaarsanno wixii loo baahayay marba inaan ka wada hadalno marka si fiican baan u wada hadalno waan isla afkarnay waxaan ku wada hadalno dal aan jaarno wax badan oo wax wada shaqeynaa xagga nabadgelyada xagga trade-ka xagga xuduudda dhinaca walba inaga dhaxaysa marka waxyaabahaas dantu inaga dhaxaysa ka wada hadalno. dhinaca kale wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland oo isna kulankaasi ka hadlay waxa uu sheegay in labada dhinac guulo wax ku oolo taariikhiya kulankaasi waa iyadoo saacado tiro badan buu yiri Maxamed Biixi Yunis ay wada hadleen ra'iisul wasaare Haile Mariam iyo madaxweyne Axmed Silaaya. ma markii ugu horeysay madaxweynaha Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Silaaya iyo ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Haile Mariam Desalegn ay kulan ku yeesheen magaalada Addis Ababa iyadoo labada dhinac kulamo hore ku wada yeesheen Addis Ababa. Xamse Cali Bulbul, Maxamed Jaamac Garas, TV-ga qaranka Soomaaliland, guriga ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya.